جاي كليبيada oo dadka la wadaago kulli way qaldanyihiin maruu qaniis saaxiib ka dhigto oo yiraahdo ilux igu qabo waxa jiray sheekh oo masaajid dhexdiisa iga soo aflagaadeeyay aan rabaa inaan hadii aqal qofka uu yahay oo sheekh dhameystiran uu yahay sida aan ka aragnay culamadeena oo ugu horeeyay sheekh Mustafa qofkina uu imaado aad dhahda awalan walaalo waad qaldan tahay waxaad ku socotid xumo baabajey aniga waa isla xiriirnay maalmaha kamida waxaan ka helay tima jaro ku yaala dabka oo leeyahay saki barbara oo timaha lagu jaro saki meel timaha lagu jaro rag dhalinyaro oo aqyaara ayaa jooga oo shaqaysta oo timaha qurxiya xirfadooda ku shaqaysta umadana nabadgeliya diinta ilaahayna jecel waan la xiriiray waxaan iri nin noocaas aan ahay qofkii ugu dhawaay ayuu weydiiyay wuxuu iri ninkaas waa nin diinta faafiya koleyti adduunyo ka dooni maaye waxbuu rabaa inuu ka saxo sabdiyeed waa xasuustaa wuxuu ugu iri isniinta aan isaragno waxaan ku iri isniinta adoon maskiin ahaan aho maalinkaas waan ka faa'iideystaahe maalmaha kale ii sheeg wuxuu iri aan arbaca isaragno arbacadii aniga iri qadada aniga qabo aniga marti ii tahay uu iga aqbalay uu ii gooyay waan wacay telefonku iga qaba waayay arbacay ahayd jimcu ii soo jawaabay wuxuu yiri sabdiyaan is arkaynaa sabdigii uu ii gooyay fariimihiina dhaxmaray anigu waan hayaa waana aaminsanahay inuu igu inkireyni maalmaha kamida ayaa asagoo hor fadho midniba supermarket wadada u dhaxaysa geetalaalka dhinaca midigta ka qabanaya oo hadda alaabta telefonaadka casriga lagu iibiyo asagoo fadho ayaan u tagay wuxuu igu yiri iga hor dhaqaaq waxaan iri wadaadkii walaalka ahay ee raba inuu ku qeyr miira ayaan ahay xaq baan wadaa walaalka ahaan ahay waqti isi wuxuu yiri iga hor istaag iga hor tag aad buu ii aflagaadiyay ilama hadlin uu ihiifay nin dhalinyaro oo ii qiinay waan ku celini aniga maanta dadka Muqdisho ku nool way yaqaanaan inaan caan noqdo uma baahni inaan caan noqdo uma baahni 12 sano ayaan masaajida Muqdisho ku wareegay nin dhalinyaro ii qiinay wuxuu yiri ninkan nin saaxiiba ayuu leeyahay waxaan rabaa inaan halkan kaga mahad celiyo Yacko nin walaalaho saaxiib saaxiibnimada wax ka yaqaan weeyaan Yacko telefonkiisa leeysiiyay uu nool yahay Yacko maanta waan la xiriiray haad buu ii qiimay wuxuu ugu yiri koleyti anuguna in badan baan la hadlay Yacko nin dhaqanka wax ka yaqaan foolxumada yaqaan wuxuu ugu yiri waan la hadli laakiin waxaan rajeeyaa inuu wax maqlaynin maanta ka been sheegi ma Yacko warkayga dhulka muusan dhigin uu la hadlay dad kala ii sheegay inuu yiri baabajeeyow dhaqanka iyo diinta dadka uu ilaali Muqdisho dad badan oo wanaagsan baa joogo TV-yada Muqdisho ma ogtiin inay saan ka kooban yihiin waxay leeyihiin TV-gu wuxuu leeyahay agaasime wuxuu leeyahay tafatire wuxuu leeyahay madaxa wararka maxaa inta loogu sameeyay ma garanayna waxa loogu sameeyay wixii dhaqanka amba dib keeni karo in laga jaro warka iska fahmi sheekh baabajey kilibiyada oo dadka la wadaago kulli way qaldan yihiin maruu qaniis saaxiib ka dhigto oo yiraahdo ilux igu qabo ya adeero baabajey yaa la dhuminin waa walaalkay waana jeclahay yaa la dhuminin quraanku 23 sano ayuu dagayay nabigu sallallahu alayhi wasallam 13 sano oo Makka joogay 86 suuradood oo Makkiha ku soo degtay Allahu rabbul alamin wuu awooday kalaamkiisa iyo hadalkiisa inuu maalin soo dejiyo 23 sano aayad baa ku soo degtay saxaabadu markay tageen Madiina maxaa la yiri 23 sano suuradaha qaar waxay leeyihiin sababu nuzul إلهي وحو يسألونك عن المحيض قل هو أذن
xaaska aad qabto oo mas'uuliyadayda ilaahay kuu dhiibay oo ilaahay jirkayda uu kuu baneeyay inaad ku raaxaysato waxaa lagu yiri maalmaha qaar ka fogow oo ka dheeraw ifcal la tafcal iska fiiri sheekh wadaadada muqdisho jooga ben bay ni sheegayaan kuwa munkarkiina indhaha ka xiranayana ben bay ni sheegayaan maanta wadaad waxa ugu qaalisan ninkii ku jeebkaaga ku nabadgeliyo xoolahaaga ku nabadgeliya ay ku yiraahdo diintaada ilaasho dhaqankaaga ilaasho sharaftaada iyo dadnimadaada ilaasho ugu qeyr badan runtuna way qaraar tahay xaaskaaga waxa lagu yiri maalmaha qaar ka dheeraw ilaahay wuxuu yiri yas'alunaka waxay ku weydiinayaan anil mahidi haydkay wax ka weydiinayaan qul waxa tiraahdaa huwa haydku adan qurway ay fa'tazilu kadheeraada an-nisaa haweenka xilliga ay caadada qabaan toddobaadka shanta maalmood afarta maalmood gabdhaha xibinta taranka ha ugu tigine ka dheeraada yaa ku yiri xuraata sheekh ifcal la tafcal islaamku alla wuxuu leeyahay ifcal samay la tafcal ha samaynin aniga jacaylka waxba ka qana xaaskaaga inaad casuumto oo caawa tiraadid ilmaha cashadooda u kari adigu waxaad leedahay anigaad marti ii tahay casho gaara ayaad leedahay shariicadu way qabtaa anigana sameeyo qaybna maha as-saa'a was-saa'a inaad xaaskaaga saacad la qaadato meel qurux badan oo doog leh oo leerarka cad aynu ku xirnayn mugdina aan ahayn iftiinkun oo ku badnayn inaad xaaskaaga casho qurux badan inta u samayso laba filaan ah 10 garaano dahab aad u soo diyaariso markaad cuntada niila keena aad ku bilowdo bismillaah magaceed markaan macnayno ilaa waxaan cugsanaynaa magaca la weeyaan culimadayna Allahu naxariistay markaad cuntada cuntaane inaad Allah u mahad celisaan labadiina oo aad dhahdaan alxamdulillaahi alladhi ad'amani hada warazaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa markaad aragtaan luqmadana aad xaaskaaga jaanib saddexaad oo ku arkaynin aad luqmada afka u geliso ajir baad ka helaysaa dad bilaadina ay taxta sifira ay dhaqankii gaalada qaatay ay waxay leeyihiin xaaskiisa hadoo dhunkoodo maxaa laga rabaa xaaskaaga bulshada horteyda kuma dhunkoo kartid islaamkaana diiday waxaan rabaa inaan la wadaago dadka aniga igu xiran xalay TV-yadii Muqdisho dhan ay soo wacay inta ugu badan YouTubero Facebookyo waxay yiraahdeen baabajay dadka ku xiran waxay ku dhaheen caannimo ay doonayeen oo caan noqdo inaan ka wareysano waan u jawaabay aniga iyo baabajay dagaal nagama dhaxeeyo waana walaalkay baabajay haduu yahay nin caana oo sumcad leh oo sharaf doonaya baabajay diintaada ilaasho waa kilibkii ugu dambeeyo baabajay ugu nasteexaynayno waana jeclahay oo walaalkay qaniisiyada aad ag fadhido oo cilmi ugu horeey xiriir ku jar nin muslima oo dhameystiran baa ilaahay ka dhigay xaas baad leedahay ilaahay wuu ku badiyay maanta waa tarantay caruur baad leedahay aabba tahay sharaftaada ilaasho dadka ku dhahayo waan ku sitaa horo u soco lajan dhalay wallahi way ku sirayaan waxaana ugu daran dadka beejkaaga ku xirana ugu daran dadka way ku sirayaan aniga walaalka ahaan ahay dagaal naga ma dhaxeeyo maanta hadaad ii baahato xilligan doontaan kula kulmaya nin wadaada oo u istaagay diintan baan ahay waxa ii haray TV-yada iyo Facebook-yada aniga wax waraysi oo aan nisiihayo ma jiraan aniga idinku waa kala tagnay nin walaalkeeya oo maalin maalmaha kamida aan u mahad celi doono ayaa tala ii siiyay wuxuu igu yiri aqoonna waa leedahay bulshaduna in badan way ku taqaanaa maxaa ku daba dhigay agaasimayaasha TV-yada iyo idaacadaha Muqdisho inaad ka daba wareegto ay taleefanaadka kugu dhigaan laba page samayso cameraman wax ka duuba samayso
aniga hadda kamirada wax la iga duwayo anigu ma lihi waana gada doonaa wiilka wax iga duwaayane waa nin dhalinyaro oo wax bartay oo duwista yaqaano soo ma jeedid shaqadiisa weeyaan xirfad uu leeyahay anigu waxbuu iga duwaa waqtigan ka iibsada xaquna uu leeyahay maantana dad badan baa ay taageersan waxaan ku farxsanahay inaan baabajay YouTube-kiisa commentiga akhriyay dadka inta ugu badan waxay leeyihiin indhaha naga abuyustay anu ereyga ma garanayo laakiin waan rabaa inaan sheega rabaa indhaha naga abuyustay caruurtaynaad dhumisay haweenka naga dhumisay wax runta ku sheega weysay waan ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan halkan kaga mahad celiyo walaalkay Yaasiin Haliyey uu mahadsan yahay walaalkay waxaan u mahad rabaa inaan u mahad celiyo nin liiraada laagaha asna uu mahad celinaya umra waxa laga wariyay wuxuu yiri lastu bil khibbi wala al khibbu yakhda'uni wuxuu yiri dhagarlowni ma dhakraya dadka kilibiyadeeda qaadanaya ay adduunyo ku raadinaya ay aniga wadaad dadka fadeexayhaya iga dhigaya iyo kuwa khayrka ka shaqeynaya ay kilibyada inta qaata dhahay walaalku runbo sheegay hala qaato waanu mahad celinaya saakay nin baa isoo wacay aan u maleeyahay baabajay inay qaraabo yihiin oo macallima adugu markaad laba xarf la soo boodo meelaha lagu saaraa moogta adeer diintan intaan ku dhex jirno bal dib u soo fiiri waxna way noo dhiman yihiin 2006 ninkii xasuustee intaan waan ka yaray aqli ma lihino aw dadka aqliga lahaay 2006 intaan waan ka yaray waxaana lay magacaaway daaciga shabeelada dhexe gaar ahaan jawhar 2006 ilaa maanta dacwo iyo waxbarashan ku jira maxaa ii faa'iidi karo maxaan faa'iideystay adiga ka jawaabay ويسوعي مركز ويري فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم سو إلهي مدهن وعائري لست هدات كشق يسو وحيتهاي كونك دور ردان كسينيا ما حكى ودا لست واي لقف كوينو لغة عربية قنا هذا رو إذا بيلو لست وإنا تقانا وحيتهاي فذكر وحيتها وإنا تقانا أنت كتم هذا أنت كتمي يا اسكفير شق أقون بان أولينها أسلوب كدعوة ضدك وحلوه قدبيو بابجي وان لكل مي وإيجن بي أصو ميل فردان أركي وحوري إيجو هرتك صاحبكي بان لحظ لي يعقو وحوري بابجي وان لحظ لي لي ماي لكن وح مقلي ونوليها بابجي نكالي هذا يعقو وحا إيدي من إذن كان يقرر ربا مرك waxa ii harsan sheega qofku markuu xumaha la soo banaan baxana waa la magacaabi quraanka soo ilaahi fir'aun ma magacaabin ilaahi muxuu yiri idhab ila fir'auna innahu daga dhahaba yadhhabu إلهي وأمر اذهب فعل الأمر واي إلهي وحوري اذهب دقاق إلى فرعون حقي سقو إنه فرعون ضغى وقوغي إلهي وحوري موسى بشرني مذي بو كبحي نكلي هذا فرعون أي أتك إلهي يوم قعاوي وكلاء أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب إلهي يوم قعاوي قوم دن أولي هذا قوم لوط وقبيل دن أو ناقد دي آيين إلهي محويري إنهم كانوا قوم سوء وحمان دول كدبوري الله رب العالمين حمان دول كدواي إلهي يوم قعاوي قارون هامان يا نبرود نوينو دميين قفكم مركو منكر كاللصو بنان بحو والله مقعاوي دعودي بابجيني ماشي سيكو حرمتاي تيفي شيخ شنتاي انت اوتغو او وريسي سي هاي نمجريو تيفي مقدشو وان كلا تغني اذا عادها مقدشو وان كلا تغني نين اودايهو مانتا لبا بيجلان اهي
maalin maalmaha ka midana walaalkay magaciisa sheegi doonaa waana walaalkay ma aha kii hooyada iyo aabahay dhaleen laakiin waa nin gacala oo diinta jecel oo aamina labadeed beejna isaga gacanta ku hay waxaan rabaa inaan u mahad celiya dadka dhalinyarada ah ee aniga beejkayga ku xiran ee ii duceeya ee mar walba ii soo qoro in xun ilaahay kuma tuso waa ku faraxsanahay diinta islaamkuna waa qaali diinta islaamkuna waa qaali culumadayna waxna soo bartay ayaa waxay noo sheegeen waxay yiraahdeen culumadu la budda likulli ni'matin hasid nimca walba waxay leedahay hasid aniga in la yaayo walan yahay aanimo raadinaya baabajiyo kama siirsan yahay in la yiraahdo raaliyanka waa ku faraxsanahay ya nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa maalin hadal xun ugu yiri هذا الحب الويري ومرجي والنبي صلى الله عليه وسلم سلاد محمود أو آثم أو مسكين أو ضعيف أو ذنوب تيسو أي بدن تاي محد مودا حل كان ما أنت منكر أو معروف اسكو بدلي أي قفك وناك شقيها يلعيها ما يشوف شيء محمد عبد الحرمة يوناك صوم كواي ما هندتكو دت نجمدا أي عينيان الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون أو ولي بيج يوتيوب عن سمايسن أنت لغوص سمايستمج عيسى لله يا الشيخ مصطفى ذاتك العبو أرورينيا أي الشيخ مصطفى لقى بين أورايا سلاد محمود مودا كنتن إيه سجال سنين للوضع أن دين توش غينيا الشيخ محمد عبد الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون قاركو دولة محمد سياد براحلتي مع علماء اللوح رميواي نبي صلى الله عليه وسلم بمالين أسوم ركسن وقديج ويمين ووركي قدام بيا وحارب ضدك حق تاجر إني سبران دول قاتا واني لعيني واني لنبي والوقف لجاديني ما مرك قال ريسكي يتجلي والوحري ما مرك قال والوجدلي صبرا دول قاتا وحصلنا ديارنا ورقم حو نبي كويري هذا العجيب وكويري محويري إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وحد لتمدي أحد لبا إيمان إلا عودي والعلدي ورشيق هلا ويدي وحو كلمة دان مساجد كويري dadka qaar masjidkii masaajidda ku jiray uga faayaan waxaan la yaabanahay kuwa cawaanta u dhageysanay dadka masjidka ku jiro way ka sharaf badan yihiin ilaahay bay marti u yihiin quraankay akhriyaan tasbiixday akhriyaan ilaahay bay xusaan adiga commentiga qaldan soo qaray way ka sharaf badan yihiin waxaan ka shaqeynaynaa wadankan inuu noqdo qaran waxaan ka shaqeynaynaa wadankan in diinta lagu maamulo waxaan ka shaqeynaynaa wadankan ciidanka askarta wadooyinka noo taagan inay noqdaan ciidamada NATO kuwa ugu awood badan kana qurux badan kana qiimo badan hamigaas ba qalbigiina ku jiro inay ciidankeena noqdaan siyaasiyiinteenu inay noqdaan kuwa siyaasiyiinta dunida kuwa ugu sharafta badan ee ugu cadaalada badan waa maalinka diinta Ilaahay kitaabka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aan qaadano weeyaan waa maalinka kitaabka Ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan qaadano munkarkana aan inkirno aad u mahadsantihiin wiilka mar walba waxa iga duwan u mahad celinaya dadka xaq taageersan baan u mahad celinaya maaha aniga shakhsiyadeeda maaha